Dhimbiilaha dabka ee wax guba marmarka qaar waxaa ka xanuun badan dhacdooyinka taabanaya cirdiga iyo damiirka qofka, gaar ahaana kuwaasiba haweenka. Waa dhacdo ay ku dheehan tahay murugo iyo ilin fara badan, misena ay la daristay nasiibna ay u yeelatay inay la noolaato gabadh da'yar oo ah caar Soomaaliyeed oo noloshu ku xumaatay, waqti qadhaadh oo rafaad iyo murugo watana nolosheeda ku soo qaadatay, kadib markii hooyadeed geeriyootay nafteedana ay u weyday wehel u gala booskii hooyadeed. Walow ay tahay gabadh da'yar oo keliya nolosha ay ku weheliso inan yar oo iyadu dhashay, ifkana ku timi kufsi loo geystay, misena ay tahay mid ka rajo dhigtay macaanka iyo dhadhanka nolosha, keliyana ay u nooshahay rajada iyo korinta inanteeda sabiga ah, wehel iyo deris dhowna la ah ciilka iyo murugada. Haddaba gudagalka barnaamijkeena Hiil Walaal si aynu gunta u soo taabano qisadan xanuunka badan, waxaynu bedeli doonaa magaca gabadhan, waxaanaynu qarin doonaa wejigeeda maadaama ay tahay caar, waxaanaynu ugu yeedhi doonaa inta barnaamijku socdo Hoodo Maxamed Jibriil. Hoodo Maxamed Jibriil waxay ku dhalatay kuna barbaarsay magaalada Hargeysa. Ha yeeshee barbilowga caqabada iyo culeysyada nafteeda soo wajahay waxay la kowsadeen markii hooyadeed iyo aabaheed kala tageen iyadoo sabiya, misena isqabqabsi ka dhashay midka ay raaci lahayd labadeeda waalid. Walow Hoodo aanay doorashada lahayn maadaama ay ahayd sabi aanu garaadkeedu ku filnayn, haddana wax walba waxay u dhaceen sidii saxda ahayd, waxayna xaggeeda noqotay barbaariyaha iyo iftiinshaha nolosha. Waa hooyadii ifka keentay. Ha yeeshee waqti yar kadib waxaa tii alle u timi oo geeriyootay. Allah u naxariistay hooyadeed. Maalinka wixii ka dambeeyey Hoodo waxa u bilaabmay nolol bilaa hooyo ah oo ka duwan noloshii quruxda badneed iyo jacaylka ahayd ee ay ku soo jirtay. Waxay mar kale mushkilad ka dhalatay qoyska ay la noolaan lahayd labada qoys ee ay ka soo jeeday, waxaanay Hoodo ku dhacday meel dhexe oo laba ka dhexeeya ah. Waxay noqotay gabadh aan meelna ku tiirsanayn oo la isku turturo, kolbana xaafad u wareegta. Ha yeeshee markii garaadkeedu kobcay ayna garwaaqsatay nolosha ay ku jirto, waxay ka doorbiday inay tahriibto oo nolol kale raadsato. Waxay qaaday toobyihii tahriibta waxayna u ambabaxday magaalo xeebeedda Boosaaso oo ay damacsanayd inay sii dhaafto. Ha yeeshee magaaladaasi waxay noqotay bartii ay ku burburtay rajadii ay ka lahayd nolosheeda. Goor habeenimo ah ayaa Hoodo lagala baxay xeradii ay ku jirtay ee ay ku sugaysay doonta, waxaana iyada xilligaas lagu qanciyey in goob kale la geynayo. Ha yeeshee manaxaankii beenta u sheegay waxa uu geystay guri weyn oo aanay Hoodo garanayn jiho uu kaga yaalo magaalada, maadaama waqtigu uu ahaa xilli habeenimo ah, misena aanay aqoon u lahayn magaalada. Manaxaankii waxa uu Hoodo halkaas ku haystay muddo ku dhow bil, xilligaasna waxaa calool gashay cunugta keliya ee hadda nolosha ku wehelisa. Manaxaankii qafaashay si ay tiisu u socoto, waxa uu Hoodo kala doorasiiyey laba mid oo kala ahaa inay lacag qaadato oo ay ku noqoto halkii ay ka timi, iyo tan labaad oo ah haddii ay diido arrinkaas inuu dili doono oo aanay cidina waxba ka weydiinaynin. Walow ay dareensaneyd inay nafteedii bohol ku dhacday, haddana Hoodo waxay qaadatay lacagtii, waxaanay ku soo laabatay magaaladii ay ka tagtay ee Hargeysa. Waxayna mar kale dhibana u noqotay qoyskeedii oo ka war helay xaaladda uurkeeda. Xilligaas wixii ka dambeeyey Hoodo waxay qaaday tallaabo kale oo nolosheeda wiiqday. Waxayna go'aansatay inay nafteeda disho oo ay adduunka isdhaafiso, maadaama ay dunida ku cidlootay kuna ciishootay. Waxayna nafteeda ku qabatay oo ku gubtay dab, se alla kama dhiginteedii. Ha yeeshee dabkii ay nafteeda sudhay waa ay ku naafowday. Waqti xadirkana waxa ugu daran qoorta oo iyadu isku dhegeen. Xilligan Hoodo ma shaqaysan karto, ma xaragoon karto, mana haysato nolol fiican. Waxay ka rajo dhigtay dhaldhalaalka nolosha iyo macaankeeda, waxayna u nooshahay korinta iyo barbaarinta inanteeda yar. Barnaamijka Hiil Walaal u daneeyaha dadka jilicsan oo isagu diiradda saara inuu bulshada u soo bandhigo dhacdooyinka xanuunka leh ee bulshada dhexdeeda ku qarsan, ayaa waxa uu ka war helay xaaladda mugdiga iyo murugada una dheer tahay cidladu ay ku nooshahay Hoodo. Aadan ku dhalatay magaalada Hargeysa. Hooyada aabbaano yar bay kala tageen. Kadib haday kala tageen baa la siiyay. Muddo kadib hooyadii waa dhimatay. Markii hooyadii dhimatay, faamigii hooyada iyo faamiga bahay isku turtuur isku eegid badan oo isku ka eegeen noloshayda kadib. Labada midna maraacin dhexdooda ku dhintay, kolba mid ba adeeg oo ku dhex baabay. Noloshayda ku dhex luntay. Hooyo goorma dhimatay walaalay geeriyootay? Muddo imika 12 sano maanta.
bas kadib noloshayda xaaladda waxba isbedel way ka noqon waayeen, wax caawin ama wax tabracaad reerkaygu ii geysan waayeen. Sidii unba noloshaydu sii ahayd. Kadib baxsadaan ku tegay magaalada aan kaga tegaanoo tahriib doonanaya nin nimankii mukhalasiinta ka mid ah. xaggeed qabatay marka tahay indhaad bahan Bas asaa rabay inaan ka tahriibo. Nimankii i tahriibinaya nin ka mid ah ayaa kaxaystay yidhi anaa qaar baa kugu daraya. Kadib in badan muddo bil gaadhaysa ayuu igu haystay aqal. Kulna waa maxayda nasu dooniga yeelay kulna aqalkiigu dhex haystay. Kadibna maalmo kadib dhakhtarkaa la geeyay, gabadh baa i kaxaysay. Waa uur baa igu soo baxay. Waan bogsaday, lacag baa la i siiyey, mana ashkateyn kartid baa la yidhi. Waa la i soo diray. Sidaas Soomaaliland ugu soo laabtay. Ilmahan ku dhalay ku haystaa. markii aad soo laabatay aad xaggii Somaliland iyo Hargeysa timi bal ka waran maxaa isbedelay noloshaadii hore culays saarnaa maxaa haddana kusoo kordhay, maxaa kasii kordhay? Waxba sidii un nolosha markii ugu badnayd iigu adkayd baa hadda unbaa galay. Nolosha dhibkeedii ugu weynaa iyo dhibaatadii ugu badnayd hadda unbaan ku noqday. Kadib waxaan sameeyay cadho iyo shaydaan ii geystay inaan noloshayda khatalo oon isdilo. Kadib aan naafo ku noqdo, naafo jirkayga soo gaadho ama wax ku noqdo curyaan. Qaybo xubnahayga ka mid ah sida xubnaha naasoo kale aad maanta shaqeyneen dhigto kale aduu xubno badan oo naftayda ka mid ah. walaal xaggee baan ku shaqeynaynaa adoo codkaagana bal sare u yar qaadayo? Naasi iyo dhigta igu daran dhinaca dhan ayaa igu daran, xaggaas ayaana naafo ka ahay. bal waxaad ka warantaa walaal noloshaada iyo sidaad iminka u nooshahay adiga iyo nuunahaaga yari? Nolosha aad bay igu adagtahay, mana awoodo ilmahayga inaan wax u geysto ama aan korsado ama wax u taro, ma awoodo. Cid wax igu siisana ma leh, cid wax ii tartana ma leh. Inkastoo nabaradaydu aad iminka ii xanuunaan oo ii bukaan cimilada jirta darteed oo besti aan ahay, marmar qaarkeed xanuusto. ma si keliyaad isaga nooshahay mise waxaa jirta cid iminka aad la noosho oo aad isku hoy kasoo toostaan? May keliga ayaa noolahay, kulba meel ayaan seexdaa, kulba meesha iigu dhow ama kulba qofka iigu dhow ayaa la seexdaa la galaa. Walow iminka keliga aan deganahay. xaggeed keligaa degan tahay? Qol ayaan keliga karaystay, mana awoodo. Marka helana waa bixiyaa, walaalahay iga bixiyaan, asxaabta ha noqoto, qof iska ranayna ha noqoto, qof tabracaado wax isiga ha noqoto, keliga ayaa iminka qol galaa. iminka inantaadu intay jirtaa? Sanad iyo bil. bulsho weyn Soomaaliyeed oo muxsiniina oo jecel inay walaalaha dhibaataysan caawiyaan oo taageeraan baa ku daawanaya. maxay tahay iyaga fariintaad walaal halkan uga diraysaa? Anuu fariinta xagga uga diray waxay tahay ani caafimaad ayaa ii muhiima. Waayo gabadh baan ahay, noloshayda waan dayarahay, naab baan ahay. Waxaan jeclahay inaan quruxdayda helo. insha allah waad helaysaa, waad caafimaadaysaa, waxba walaala ooyin. insha allah dhibta laguma waaro oo laga baxaya. adigana ilaahay waxaan kaaga barya insha allah inaad nolol qurux badan aad noloshaada ku dhammaysato. muxsiniin badan oo Soomaaliya oo dalka gudihiisa iyo daafaha dunida ku kala noolba way joogaan, iyagana gacan ka geysan doona insha allah in noloshaadii quruxda badnayd aad ku soo laabato. u daneeyaha dadka jilicsan hiil walaal.